Sina wada ogsoonahay maanta waqtigeena ugu badan waxaynu xusiinaa telefoonka ha noqoto chatka aynu kula sheekaysano dad aan wax macna inoo sameynin iyo sidoo kale rogrogida screenka telefoonka haddaba saynu ka war hayno dunida maalin kasta wax laga soo saaro daraasad ku saabsan xanuunada nafsiga ah ee laga qaado isticmaalka badan ee shaashada telefoonka muuqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan ku dul istaagno dhowr hab oo aad ku xidhin kartid telefoonkaaga sidoo kalena aad ugu yeeli kartid schedule waqti gaar oo isticmaashid application kasta iyo sidoo kale goob kasta oo aad tegaysidna ahaan doonto mid cayiman iyo mid lagu xisaabinayo sidoo kale habkan waxaan isku dul istaagi doonaa habab fara badan oo kaa saacidaya inaad applicationada qaar ku xadaysid waqtiga isticmaalayaan iyo waqtiga aad dadka kula sheekaysanaysid kusoo dhawow muuqaalkeenan fadlan haddii aad markii horeysa aad halkan timaadid nagu soo biir haddii aad hore noola joogtana muuqaalkan like garee haddaba aynu gudagalno muuqaalkeena haddaba marka ugu horeysa waxaan ogsoonahay waxyaabaha ugu badan ee na mashquuliya amba sababaha ugu badan ee telefoonka noogu foornay saddex mid yihiin sababta koowaad waxa weeyaan applicationada chatka ah aynu isticmaalno si joogtada oo isticmaalno fariin ahaan u isticmaalno iyo sidoo kale meelaha aynu daawano haddii noqoto reelska iyo haddii noqoto short videoska ay leeyihiin softwarada aynu isticmaalno haddaba waxaan ugu horreysiin doonaa haddaba sidee ayaad u xadayn kartaa waqtiga aad isticmaalaysa application hadday noqoto applicationka timeka aad ku guda jirtid iyo sidoo kale applicationkaas inuu awood u yeesho haddii timeka uu dhaafin dabadda iskaga kaa tuuro tani waa mid jirta dunida oo dhan laga wada yaqaano permission ayaad u leedahay telefoon kastana waa lasoo raacaya inaad application kasta aad u yeeshid waqti aad isticmaashid marka waqtigaas uu kaa dhamaadana oo isagu iskiiskaa ka xuro ilaa iyo 24 saacadood kadib haddaba aynu ka horreynaya marka ugu horeysa waxaad ogaataa applicationka aad ugu isticmaalista badan tahay amba waxay noo soo doortaa applicationka aad rabtid inaad xadaysid waqtiga isticmaalisid haddaba tusaale ahaan oo kale iminka anigu whatsappkan soo doortay whatsappka ayaan rabaa inaan xadeeyo timekan isticmaalayo taas macnaheedu wax weeyaan marka uu timeka 3 saacadood oo kale ku xidhan 3 saacadood marka dhamaadaan ilaa iyo ay maalinta kale ka soo geliso aanan ka isticmaali karin wax intaa ka badan haddaba applicationka ugu horeeya halkan baad iman doontaa application halkan bay ku iman doonaan sida aniga shaashadeeda ka muuqataba waxaa halkan yaala applicationada aan timeka ku xidhay saddexda ugu badan saddexdaas ay ugu xidhan waa facebooka iyo youtubeka iyo whatsappka halka ku aragtaa iminka tusaale ahaan oo kale youtube waxa igu xidhan 12 minute oo kaliya inaan isticmaalo 24 saacadood 12 minute waan isticmaalay sidoo kale whatsappkana waad aragtaan isagana intaas baan ka isticmaalay inta saacadood ay ugu xidhan tahay haddaba waxaan samayn karnaa inaan ku dhahdo halkay ku qoran tahay uptimeska waad odhan kartaa halkan marka soo dooratid waxaad odhan kartaa balaaskaas aad iman kartaa marka balaaska aad timaadid applicationka aad u baahan tahay ayaad soo sixi doontaa marka applicationka aad u baahan tahay soo sixi marka tusaale ahaan kale Instagramkaas soo saxaya kadibna waxaad odhan doontaa set timer marka tiraahdo haddaba 00 weeyaan waa 24 saacadood weeyaan 24 saacadood waxaad u baahan in isticmaalo saacad iyo 22 ayaan rabaa in isticmaalo dhandhe okay saacad iyo 22 imika waxaan ka isticmaalay saacad iyo 22 18 minute oo aan daawaday intii ka sokaysay 12 habeenimo 12 duhurnimo maanta marka saacad iyo 12 waxay hadhay intaas ay hadhay 18 minute ayaan ka isticmaalay applicationka aad u baahan tahay ayaad isticmaali doontaa saan samayn doontaa haddaba applicationku sidee ayuu noqonayaa markuu timku ka dhamaado marka youtube-ka sida aragtid timku iga dhamaaday sidee ayuu ekaanaya amba sidee ayaan u geli karin haddii halkan nimaadno oo aan youtube-kayga raadiyo applicationka youtube aan isticmaalo saas ayuu applicationku u madoowaanaya saas u madoowaanaya kadib haddaan is iraahdo gal wuxuu ugu wareey uu ka dhamaaday waqtiga aad ugu tala gashay inaad isticmaashid applicationkan amba timekii aad ku xulatay waad gaadhay xilligu furmay wax weeye marka 24 saacadood dhamaadaan kadib ayuu applicationkaas dib ugu furmaya taas caqabad bay ahayd oo xalkeedii baan helay applicationadeen xalino timekeen ku guda jiri lahayn maadaama aad time kooban u samayso applicationka waxaad ku sahlaysaa inaad applicationka si kooban u isticmaashid wax muhiim ah weeyaan wax kale u soo gelin okay intaan ku xalino applicationada chatka ah ee inta badan taaganahay haddaba waxaa dhici karta marar badan inuu hawlo ku jirna amba wax hagaajisanayna amba wax akhrisanayna amba tusaale ahaan kale PDF ku akhrisanayna in applicationada qaarna dabaqiyaan waxay nagu soo dhacaya notification ay muhiim tahay inaan akhrino laakiinse ay ka sii muhiimsanaan lahayd inaan arkin tusaale ahaan kale adoo PDF book dhexda kaga jira ayaa wax iska ka soo dhacay notification message-ka waad galaysaa message mid kale ku soo xidhay mid kale ku soo xidhaya sidaas ayaad gabigaaga ku kulmaysaa haddaba halkaas sidee ayaynu xalin karnaa haddaba laba mid ayaad samayn kartaa in applicationka notificationkiisa isaga ahaantiisa aad blogaraysid iyo sidoo kale inaad dhammaan notificationka applicationada oo dhan iska blogaraysid haddaba laga yar qurux badan inaad dhammaan notification applicationada oo dhan blogaraysid laakiinse waxaa qurux badan inaad applicationka aad rabtid inaan notificationka soo gelin aad blogaraysid tusaale ahaan kale whatsappka waxaan ku jirnaa group fara badan waxaan ku jirnaa dad fara badan baa wax iska keenaya dirdiraayo inaan ugu talagelin inay soo diraan baynaan raalli ka ahayn si ayaan u xalin karnaa waxaad samayn kartaa inaad applicationka WhatsApp soo gashid kadibna block notification tiraahdo amba waxaad samayn kartaa halkaas sare markuu taagan yahay applicationku inta saa u qabatid inaad block notification odhan kartid amba xaggan ayaan ka soo galay halka haddeer ay ka soo gali kartaa
amba waxaad samayn kartaa inaad timaadid abiska inaad timaadid kadib marka abiska timaadid waxaad iman doontaa halay ku qoran tahay applicationka aad u baahan tahay ayaad iman doontaa tusaale ahaan oo kale applicationka inta badan iskaga soo dira messageyo waxa weeyaan ay iga soo dhacaan messageyada aan kadib aan ku mashquula waxa weeyaan waa Facebook markay imaado waxaan imanaya ku qorantay notifications markay imaado waxaan idhi block notification amba notificationka intaha ayaan off ka dhigay intaas mid kamid ah waa iska xidhi kartaa laakiin se waxa baa is wada raacay haddaba maxay isbedelaya markaan WhatsApp-kayga notification-ka xidho iyo sidoo kale markaan Facebook-ka notification-ka xidho waxa isbedelaya ilaa iyo aad soo gashay Facebook wax fariin arkimaysid qof fariin kusoo diray ilaa iyo WhatsApp-ka dhex timaadid mooyaane fariin xagga sare soo istaagaysa codna kugu soo dhicma si kalena kugu soo dhicma moolkaaga soo aan seelanahay wixii call yimi callku uu ku soo dhacaya laakiin si xagga sare soo istaagmay wuxuu ka dhacay application-ka dhexdiisa saqadhaad maqalsa waa noo tagi doontaa taas waxay xal u noqon kartaa marka aad mobilkaaga haysid gacanta ku haysid laakiin se aad rabtid inaad meel kaliya focus ka saartid oo aanad ka bixin sidoo kale waxaa jirta xal kale oo telefoonada lasoo raaciyo taas oo ah inaad meel kaliya focus ka saartid oo aad ku focus garaysid mobilkaagu inuu hal option u furnaado inta kale oo dhan lagaa xiro even haddii ilmihiir u dhiibi kartid oo telefoonka aad rabtid ilmihiir telefoonka u dhiibtid waxaad samayn kartaa inaad u furtid 3 application oo kaliya inta kale oo dhanna laga xiro waxaa la yiraahdaa focus mode telefoon kasta oo la soo raaciyo nooc kasta ha ahaado shirkad kasta ha lahaato telefoon aanu ku jirin ma jirto dad telefoonada Samsung marka saytu waxay iman doontaa ku qortay digital well-being kadibna waxaad iman doontaa halkan ku qoran tahay focus mode marka timaado waxaad oran doontaa me time ayaa oran doontaa aniga ahaantayda inta application ay rabtid inay furnaadaan oo isticmaal ahaan furnaadaan amba qofka ayaa raad u dhiibsay telefoonka oo isticmaalo ayaad saxan doontaa amba halkan keysan doontaa edit baa oran doontaa kadibna applicationada ayaad ku soo darsan doontaa kadib marka ku soo darsatid waxaad oran doontaa star okay hadda marka star tiraahid ayaan ka baxno ayaan tagno abiskii caadiga haddaynu abiskii caadiga tagno inta application ay niri intaas application hay shaqeeyaan mooyaane inta application ee kale dhamaantood way xiran yihiin tan waxay kaa saacidi kartaa haddii aad ilmeer telefoonka u dhiibi kartid oo kale rabtid inuu dhiibtid waxaad samayn kartaa labada application ee rabtid inuu game ka ciyaaraan buu wax ka akhristo inaad furtid dadoo kale telefoonada waxa la soo raaciyaa option ah inaad markaad sii seexanaysid aad telefoonkaaga uu galo silent mode intaas oo dhan ba hal option ayaa kaaga filan soo kale in laga xiro dhammaan applicationada lagaana dhiman isticmaalka shaashada screen-ka hadda option-kaas waxa la yiraahdaa sleep mode baa la yiraahdaa telefoonada Samsung waxaad ka soo geli kartaa option ay ku qoran tahay digital well-being soo kale telefoonada abalkana setting-giisa ayuu dhex yeelaa hadaba sleep mode-ku wuxuu taro balan yar dul istaagan laba mid ayaad samayn kartaa telefoonka waxaad ku xiranaysaa waqti aad oranaysid waqtiga wixii ka dambeeya waan seexanayaa kow telefoonka shaashadiisa waxay noqonaysaa black and white ilaa iyo 24 saac ka soo wareegayaan amba waagu ka bariyayaan black and white ka seexanaysaa soo kale waxa laga xirayaa call inuu ku soo dhaco notification ku soo dhaco waxa soo dhan waa laga xirayaa hadaba sleep mode-ka aanu nimaado waxa ku qoran marka rabtiin sleep mode-ka timaadeed ee bedtime mode-ka ku qoran waqtiga sirta ay ku qoran saas aad dul iman doontaa marka dul timaadid waxaad saxanaysaa waqtiga aad rabtid inaad seexatid iyo sidoo kale waqtiga aad rabtid inuu telefonkaagu weebaristo tusaale ahaan oo kale waxaan oran doonaa haddii markaan tar aan yiraahdo aniga telefonkayga way ku xiran tahay waxay ku xiran intaas oo cusub calendar-ka waad aragtaa haddii aan halkan baad furan doontaa marka schedule-kan furatid schedule-ka ayaad iman doontaa okay waqtiga ayaad iman doontaa xagga saacadda ku qoran tahay waa waqtigu bilaamayo ah waqtiga aad seexanaysid waxaan ka dhigtay marka 12 iyo 12 merer ayuu telefonkaygu madoobaanaya oo uu bedtime mode galaya amba uu sleep mode galaya amba uu seexanaya waxaanu furmayaa amba uu caadi noqonayaa 5 iyo barka subaxnimo inta wixii u dhaxaysa telefonkaygu wuxuu noqonayaa black and white sidoo kale dhammaan wixii soo garaaci kara amba mashquulay wiima laha amba ay toosi lahaan waa laga wada xiraya haddaba way ku kala duwan yihiin telefoonadu optionadan aan soo marnay option-kan ay adeegsanayaan ba telefoonkan ay adeegsanayaan wuxuu ahaa Samsung soo kale Apple ku leeyahay telefoonada kale ee Huawei-ga iyo kuwa kale ee hadda la isticmaalaaba way leeyihiin inta waad ka dhex raadin kartaa oo aan isticmaali kartaa muhiimaddu waxa weeye in xadiis screen time-ka mobilkaaga isticmaalaysid